hadaan Soomaalinahay caado waxaan u leenahay inaan cabana leh housing-kii naftana lagu dhibay ilmihii waxbarasho fiican iskuulka uma leh booliiskii nafteenu ku dhibeen waana la necab yahay guriyii hadda public housing-ka dadkeenu ku jira waa aragti nolosha ay ku nool yihiin kulli waxaas dan haddaan isweydiino arrintii oo dhan waxaan ku soo koobnay waa midabta koor waana la necab yahay laakiin sababta ugu adag oo inaan ogeyn oon xoogaa dheelsanan waxa waaye ma codkeena ma bixino qof walba wuxuu isleeyahay qofka kala foodaayo qofka kasta wuxuu isleeyahay daycare caada adult daycare caada business aan leeyahay laakiin waxaan hilmaanay meeshii ugu muhiimsanayd oo awoodeena ay taale oo ah codkeena inaan bixino qof kasta oo qaangaar oo 18 sano ka weyn oo Soomaali ah codkiisu wuu tirsan yahay haddaadan soo bixin oodan foodinin cid ku naxariisanaysa male cid ka baqaysa male sababtu tahay vote-kaagu dadna kursi ka dajiya dadna kursi u saara sharci wax ka bedela maslaxadeenu wax u sameyn kara waxaan idin leeyahay hooyooyino walaalayaal habaryaal eedooyino dadkiina dhalinyarada ah codkii foorinki wuu bilowday baxa taga waxay idinku qaadanaysaa cad wax ka yar telefoonka meesha ku qoran halkaan isuron office-ka baabuura taalo meel ka soo joogtiin soo hadla magaalada Minneapolis Minnesota dhexdeeda ka soo hadla waa la idin geeyna meesha codka ka bixinaysiin waa la idin turjubaa dad badan waxa joogan volunteer ah oo arday ah oo dhalinyaro ah oo waayeel oo idin saacidayaan sumcadeena saan kor ugu qaadno bilaahi calaykum codkiina bixiya umad fara badan baan maanta haysan xorriyad ay ku codeeyaan umad fara badan baan maanta haysan xorriyad ay ku doortaan qofka ay doonayaan umad fara badan buuna maanta codkooda wax qiimo ku fadhiya oo uusan jirin oo muxuu ahaa qof cod weydiinaysa iyo qof talo weydiinaysa iyo qof muxuu midna aan haysanin adduunka dacaladiisa ku nool umada fara badan baa u dagaalamaya oo dhiig u daadinaya inay xorriyada helaan in cidda ayagu rabaan si ay ku dooran lahayn ay ku helaan umad fara badan baa arinta iyada ah muxuu ahaa halgan ugu jirta inagu marka waxaan ku noolahay qayb ka nahay wadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tafadulay dadkiisu dadaaleen oo shaqeeyeen oo dariiq dheer loo soo maray taasoo marka qofku uu xorriyadiisa khiyaarkiisa uu ku dooranayo cidda uu arko inay wadanka dan ugu jirto cidda uu arko wadanka inay maslaxad u tahay cidda uu arko in muxuu ahaa community-ga muslimka iyo wadanka guud ee community-ga muslimka qayb uu ka yahay waddankan aan joogno waa waddan codka lagu xisaabtamo haddii aynaan codka bixin ma noqonayno dad jira ama dad muuqda ama dad la garan karo marka muhiimadda koobaad ay leedahay waxaa weeye waa inaan soo baxno oo qolo walba codka aynu leenahay ay aragto haddaynu meel kasta aan u codayno labada qoloo loo kala codaynayo meesha doonta u codee laakiin muhiimaddu waxaa weeye joogitaankaaga iyo tiradaada iyo codkaaga iyo saamayntaada iyo meesha aad ku nooshahay waxa aad ka tahay in la ogaado waana muhiimadda koobaad marka insha allahu tacaala waxaan oranayaa waa importanti waa muhiim waa inaynu soo baxno codayno oo aan layna arko oo cid kasta oo daraynaysa codkeenna markaas inagu aynu ka keensan karno waxaan rabno laakiin haddaynaan codaynin haddee saxadiiba kuma jiro waxaan ahayn lama yaqaano meel kasto oo joogtid waxa lagu yiraahdaa ama ka maqnaaw ama ka muuqo waxa waaye waxaas kugu yahay waajibaas kugu yahay inaad subaxdii aad soo kacdid aad tagtid meelaha oo maaragtay doorashada inaad maaragtay aad buuxisid feelka inaad meeshii adiga aad jeceshid oo dantaada iyo caruurtaada iyo mustaqbalka oo maaragtay oo Mareykanka ama mustaqbalka meesha aad degantid oo mustaqbal ugu jiro iyo dadnimo iyo magaciisa ibn aadnimo ugu jiran waxaan ii sheegi lahay ummadda oo Soomaaliyeeday war codkiina ha beer dareynina halkiina cod waa loo baahan yahay inaad maaragtay waajibaadkiina dan horaba ula soconay waxaan ku jirnaa xilliga doorashadii madaxweynenimada so
codkaaga guriga hala fadhiisan waayo waxay u noqon doonaa oo waxay isaga bedeli doontaa adiga naftaada ilmahaaga iyo maxay heeto waddanka anaga aan joogno in aad u codeysid qofta fikradaada ay tahay hadday tahay reer public hadday tahay democratic haddii uu yahaba soo waxaan ku dhihi lahay ha fadhiisanin oo coday ma ahan kaliya in adiga naftaada ay wax u tarayso ama waddankan aan joogno ama caruurtaada magacayga cabdirashiid daahir cabdi kana tirsan dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool waqooyiga Ameerika gaar ahaan Minnesota Minneapolis waxaa guda galnay doorashooyinkii dalka Mareykanka dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay codayaan codkoodu waa aad iyo aad muhiim ugu yahay dhammaan shacab weynaha ku nool North America waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waayeelka dhammaantood waxaan ku boorin lahaa inay codayaan sababtoo ah codkoodu waa muhiim wuxuuna ku xiran yahay mustaqbalkooda aad iyo aad arrintaas waxaan u dhiirigelinayaa inay dadka codaynta u soo baxaan ay muhiimadda ay leedahay in la codeeyo waxa weeyaan waa xaquuq muhiim dhab ah oo aad leedahay inaad qofka muwaadinka uu codeynayo waxay aad saameyn badan ay u leedahay nolosheena bulshada khaas ahaan dhanka iskuulada qofka waxtar ku leh qofka waxtar aan ku lahayn dhanka caafimaadka meeshii macnaha isha u fiican bulshadeena marka waxaan ku boorin lahaa dhalinyarta odayaasha iyo cid kasta oo citizen ah inay u codeeyaan codeyntana soo istaagaan u codeeyaan meesha ay danahooda ku jirto ay cidda ay isleeyihiin danta iyo ummadda Soomaaliyeed فيديوغان waxaa idin suurtageliyay ururka aan hogaamiye oo ah Isuruun saa ogtiin waxay ka shaqeysaa xuquuqda dadweynaha especially xuquuqda haweenka caafimaadkooda dhaqaalahooda iyo community-ga ay la nool yihiin waxaa idin rajeynayaa in aan qorno dad isku duuban codkooda bixiyo caafimaadkooda iyo risqooda iyo ilmahooda waxbarashadoodana hore u socodsiiyo soo dhawaada volunteer nala soo noqda na soo visit gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh